zakariya waxaad warbixin naga siisaa buuggan aad ugu magac dartay maxamed siyaad eed iyo aayatiin waxaad u qortay. maxamed mar kale waa mahadsan tahay. buugga maxamed siyaad bare eed iyo aayatiin sida maaragtay magaca baa ka dhadhamaysa waa un laba eray oo laisku maaragtay dhejiyey oo ah eed oo ah wixii maaragtay gabadfallaha ee dhacay iyo aayatiin oo ah wixii wanaaga ee maaragtay la mahdiyey maaragtay gadaashiisa oo la isku diray taasoo buugguba xoogaa maaragtay ah fariinta uu xambaarsan yahay. cabdinaasir buuggu wuxuu kusoo beegmayaa 30 sano kadib markii maxamed siyaad oo ahaa hogaamiyihii xukunka dheeraa Soomaaliya uu xukunka dalka uga degay qaab maaragtay afgambi aan kaliya dhiig ku daadan balse yacni natiijadii ka ratibanta ay ahayd in dalku uu burburo uu galo qalaase iyo fawdo iyo kala dambeyn la'aan. ka horna xaqiiqatan markii laisla qaadaa dhigo in laga hadlo Soomaaliyada maanta ah waa in runtii laga hadlo wax badan laga yiraahdo tan iyo waqtigii uu kacaanku dalka qabsaday ee ku beegan 12 Oktoobar 1960 muddada laga soo bilaabo ilaa 1990 ayuunbu buuggu si gaara ayaan isku dul taagayaa laakiin waxaa mudan in laga hadlo lana maaragtay tilmaamo had iyo jeer in maaragtay wixii ka horreeyey 1960 oo dowladihii rayidka ahaa la isweydiiyo yacni doorkii ay ku lahaayeen burburkii dalka iyo kaalintoodii ku aadaneyd in aanay dalka u diyaarin ama aanay dimuqraadiyad sal adag oo iyo wadatashi fiican aanay maaragtay dalka ku hogaamin taa beddelkeedana ay u horseedeen musuq maasuq maaragtay murqaha ku fiirsaday dhammaanba xarumaha dawliga ah iyo dowladnimada Soomaaliya iyo dabcan qabyaalad qaawan oo yani nidaamka dawliga ka mid noqday. marka buuggu ayaan la marka wuxuu maaragtay si dadban uga soo bilaabanayaa waqtigii dalku galay xurnimada uu ka qaatay gumeystayaasha oo dalku xurnimada qaatay ilaa 1990 si gaara muddadii maxamed siyaad bare uu maaragtay dalka qabsaday oo ku beegan 1960 ilaa 1990 oo ah markii xukunka laga tuuray. zakariya buuggan waxyaabaha uu sida tooska u dul istaagayo ama qodobada kuwa ka mid ah. maxamed buuggu markii dhegeystayaashu ay maaragtay arkaan runtii fariinta ugu horeysa ee la arki kara waa in kaafarka labada dhinacba ay muujinayso meel qurux badan oo Soomaaliya ah oo aayatiin maaragtay samaha u dhigan iyo tan labaad oo qaybta hoose ah maaragtay burbur oo aad iyo xilli aday ah. labada gudaheeda sawir gudaheeda unbaa gudaha maaragtay waxa maaragtay ku jirahay ay ka kooban yihiin. mararka qaarna waxaa aad maaragtay muhiim u ah in la fahmo maxamed siyaad bare kaliya maan ahayn madaxweynihii ugu muddada dheeraa ee Soomaaliya soo mara wuxuu ahaa shakhsigii ugu saameynta badnaa ee dowladnimada Soomaaliya ilaa joogadeena maanta ah yacni maaragtay hogaanka usoo qabtay waxyaabihii maaragtay wanaagsanaa uu qabtay oo ay ka mid ahayd in yacni uu horseed u noqday magaca dowladnimo Soomaaliyeedsan hirgelinteeda oo markaan saas leeyahay ay ka mid ahayd in uu yacni dalka u sameeyey yacni qawaaniin iyo xeerar sugan iyo maaragtay luuqad yacni huwiyadda ama heybta Soomaalinimo ah oo ay ku wada hadasho ama ay wada leedahay oo afka Soomaaliga qoraalkiisa ay ku ka tahay iyo dabcan in ummadii maaragtay somehow jahligu aafeeyey yacni uu yacni u furay yacni albaab cusub oo ah maaragtay ilbaxnimo iyo aqoon ay maaragtay ay ku ximbaaraan yacni dalkooda ama ay wax ugu qabtaan iyagoo huwan magaca Soomaaliyeed yacni adeegsanayna afkooda Soomaaliyeed. taas waxay ahayd maaragtay qayb ka mid ah maaragtay waxyaabihii maaragtay uu ku amaanaa maxamed siyaad bare. waxaa kaloo xusud mudan in markii ay timaado in abaarihii dalka maaragtay dhacay tii maaragtay 74 iyo xilli midka daba dheer yacni doorkii weynaa ee maxamed siyaad ku yeeshay maaragtay sidoo ma kan uga falceliyay iyo dabcan sida caalamku maaragtay u bogaadiyay kaalinta quruxda badan maaragtay uu isu taagay in yacni dadkiisa iyo dalkiisaba yacni uu maaragtay si weyn oo waafi ah yacni lama hadin karane uu uga saaray abaartii waqtiga haysatay iyo waxyaabaha kale ee maaragtay muuqan kara ilaa maanta taagan maxamed ay ka mid tahay dhismaha dalka siba dabcan laamiyada waaweyn ee magaalada ka jira iyo dabcan gobolada koonfureed iyo waqooyi isku xirkooda laamiyadii uu ka dhisay iyo waxa kale oo muuqan kara haddii noqon lahayd jaamacadihii waaweyn ee dalku ka hirgeliyey iyo xarumihii kale maaragtay hanuuninta dadweynaha iyo maaragtay adeeg walba bulsho ee maaragtay dalku ay maaragtay ku intifacsadeen haddii ahaleed waxbarasho free ah iyo caafimaad free ah. taas waa jaanib meel taagan. jaanibka kale runtii maaragtay la xuso in mudan weliba muhiim ah inaan had iyo jeer isku baraarujino
oo aan buug sababtiisa maaragtay aan u qoran ay kow ka ahayd waa in la isdul taago waxyaabihii qaldamay iyo waxyaabihii maaragtay uu si gaara maaragtay hogaankii waqtigaasi maxamed siyaad barre uu maaragtay ku dheelay ama maaragtay sheek uu ku ilduufay aan dhaha haddii xataa maaragtay aan si un u garaabo yani xukunka maadaama waxaa maaragtay bilowga maaragtay ula koobsanayay ahayn waxyaaba qurux badan iyo ballamo qurux badan oo bulshadii uu ka qaaday uu qayb ahaan u oofiyey in yani maaragtay sheek aanu ku ballan furin laakiin gunaanadka waxa maaragtay laga fiirinaya ahayd natiijadii ka dambeysay ay noqotay in yani xukunku isku dhejintii iyo qabyaaladii qaawanadii dalka ku maamulay iyo nitooxsigii maaragtay muuqday iyo dabcan kasaramarintii maaragtay qabiil Soomaaliyeed qabiilka kale oo yani sida muuqata maxamed siyaad barre uu si gaara yani reetulkii maaragtay u naas nuujinayay marka laga bardhigo beelihii kale oo keentay yani markaas in dadku gadoodo ay dowladnimada u arkaan shaar u talan qabiil gaara maaragtay oo ay maaragtay ka aamin baxaan taasoo keentay in maaragtay 1990 lagu kala tago Soomaaliya xooggeeduna waa taas laakiin waxaa kaloo barbar socda jaanibiyo maaragtay aan isiri maaragtay kuma filna in yani maaragtay si gaara shakhsiyaddii maxamed siyaad barre kelitanimadiisa looga hadlo haddii aan la tilmaamin waxaana kow ka ah oo aan kow iyo lababa maakano aysan noqon karin midda keliya noqon karta ay tahay dagaalkii ogaden ama dagaalkii maaragtay Soomaali galbeed dalku la galay Ethiopia isaga oo raba in maaragtay laga xoreeyo Soomaali galbeed gumeysigii Ethiopia waqtiga taasaa runtii ah maaragtay mashaqada iyo dhibaatada Soomaaliya halkay kasoo bilaabato hadday noqon lahayd burburka ku yimid ciidankii xoogga dalka kii dhaqaale iyo kii yani siyaasiga ahaa diblomaasiyadda caalamka iyo waxyaabaha xiriirada aynu lahayn iyo dabcan midkii bulsho oo runtii yani aan dhihi karnoba in tii ugu dambeysaba ay ahayd in markii lagu jabay dagaalkaas natiijooyinkii ka ratibmay maaragtay dhaqan dhaqaale oo ay ka mid tahay qaxootigii maaragtay dalka maaragtay Ethiopia ka imaanayay ee Soomaaliyeed dejintii meelaha gaarka loo dejiyay inay laftigeeda qayb ka ahayd musiibooyinkii dalkan maaragtay sheek ka dhacay iyo dabcan